shirkii khaatumo runtii wuxuu ahaa shir wanaagsan go-aamo wacanana ka soo baxeen waxaad se moodaa go-aamadii shirkaa ka soo baxay in shakhsiyaad doonaya in ay burburiyaan maamulka SSC ay si khaldan u isticmaaleen taasoo keentay runtii hawlihii aan wadnay sida xawligaa ku socday in araxda laga jiriyo iyadoo la adeegsanayo go-aamadii ka soo baxay shirkaa oo si khaldan loo adeegsanayo shakhsiyaad u soo tafaxaytay burburinta SSC-na ay isticmaaleen waxaa ka mid a shirka waddanka gudihiisii lagu qabanayo shirkaasi waa shir muhiima waana shir loo baahan yahay laakiin waxaa loo isticmaalay in lagu joojiyo hawlihii la waday oo shacabkii gudaha iyo dibaddaba waxaa laga dhaadhiciyey shirkaasi ilaa la qabto waxba socon maayaan waxaa loo isticmaalay qodobka in araxda lagaga jiriyo maamulkii shacabkana waxaan ka codsanaynaa inay baraarugaan dib noogu noqdaan hawlihii ay wadeen shirkaasi qabsoomi maayo haddii maamulka SSC la burburiyo shirkaa waxaanu jecelahay inuu qabsoomo mana aha waqtigan xaadirka munaasib in shirkaasi dhacdo iyadoo xaaladan dalka ku jiro waa tahay hadalkaada waxaan ka dhadhamiyey shirkaasi dad gooniya inay weerar ku hayaan dadkaasi yaad oran kartaa weyaan waxba hadda magacyo dhabi mayno oo magacyo sheegi mayno laakiin waa la ogaan doonaa dadkaa ogaan doonaa waa la iska soo bixi doonaa balse shacabka SSC waxaan ku boorinayaa inay usoo noqdaan ujeedadii rasmiga ahayd iyo dantii rasmiga ahayd lagana baxo waxa ay wataan dadka raba inay majaxaabiyaan maamulka SSC guddidii soo arooshay shirka khaatumo waxaanu ka codsanaynaa arrintaa inay nagala shaqeeyaan isla markaana ay ka hadlaan wixii ka soo baxay shirkii khaatumo ee rasmiga ahana dadka u sheegaan waxay ahayd waxaa la abuuray guddiyo aan shirka ka soo baxin laakiin heshiiskii NCO iyo annaga ku soo baxay guddiyadaasi waxay ahaayeen guddiyo loogu talagalay inay kabaan oo taakuleeyaan maamulkii jiray waxaad moodaa guddiyada laftoodii in si kale loo isticmaalay oo la bajara halaabiyey waxay wadaan kama warhayno nalama soo xidhiidhaan waxaana lagu maqaalaa in dad badani dadkii u sheegayaan guddiyadaasi inay yihiin kuwa ka madax bannaan maamulka waxaan shacabka u sheegaynaa guddiyadaasi waa guddiyo hoos yimaada oo loogu talagalay inay kabaan lana shaqeeyaan maamulkii jiray guddiyadaasi haddii aanay ka duulayn arrintaa annagu shaqo kuma lihin waxaanu ka codsanaynaa in ay sidii axdigu ahaa iyo sidii ballanqaadkuba ahaa waajibaadkooda u gutaan noona soo gudbiyaan talooyinka iyo waxqabadka ay doonayaan wax ku hagaagaan maadaamay waxaan bixin weyn la sameeyey oo maamul ahaan iyo NSCN midii dhexeeyey baryahan waxay soo tiraysay inay NSCN aad moodo inay hawlahooda halka kasii wadaan aysan wax heshiiskii khaatumo aysan maaragtay aysan ku sameyn ku dhaqankiisii marka maxaad ka oran kartaa kuwaas runtii NSCN waxay qaadatay midnimo waxbaa maqmaqlaynaa meelaha ka dhacdhacaya kuwo NSCN-ta ka tirsan hadleen oo waxay sheegeen in aanay heshiiskaa shaqo ku lahayn balse si official ah anagu ugamaanaan maqal ururka NSCN inay ka baxeen heshiiskii ay galeen hadday ka baxeenna dee kolleyba waxay noqonayaan kuwo ka wixii la isku ogaa